noolaha dhamaantii ayaan ka hadlayaa ama geesi dharab kuma jiro kuma jiro waxa la yiraahdaa geesigu markuu yar yahay yaa la siyaarkaa oo waxay yiraahdeen tusaalahan odayaasha marka inay ka irsagoo naaska hooyadii jaqaya markuu xagga ninka soo jeesto assalaamu calaykum yiraahdo u jeestaa dareenkiisa aad ka garanaysaa inuu geesinimo yahay oo ku kala baxaa oo geesinimo marka ha waa masooyinkii ugu dambeeyay meelaha 2007 dhamaadkii noolaha dhamaantii kuwa socodka dhaabee ku dhaqaaqa cagihiyo ka gurguurta dhoobada dhaalayda duushee hawada ku dheeshiyo kuwa biyo ku dhuuntaba naflaha dhigiisa dadku waxay ku dhaafeen ama ay ku dhaamaan aqli dheeli tiran buu rabbigay ku dheeho xayawaan dugaag iyo dhaqan iyo nidaam loo isdhagaysto weeye dhaantada ku soo durug waqtigani dhaqsanayee dheeldheeliya iyo waayaha islalan roga kafaarka dunida iyo dhaygagiya umuurahan kolla dhabanaha iska kolla dhoola qosolka sida loola dheelaan dhabagalay warkeego murtibaa ka dhibicdee dhalintiya dadweynuhu ha ku soo dhawaadeen horta dhaaxa abidkeedeegow adduunyadu waxay kuula dhaqantaa hadba saad ka dhigato noloshuba dhammaanteed waxa ay ka dhalataa dhaqdhaqaaqa lugihiyo adimada dhexdoodo qofba wuxuu ka dheefaa hedelkuu u dhiibtiyo dhididkiisa keliyo hadba dhaqashadiisa iyo dhugashada dantiisuu ka helaa dhigeedii ninka hawl ka dhuuntee dayalsada dantiisee hedelkii dhabta ahaa dhalanteed ka doortee dhacadiida guriga kolba shay dhaliilo ku dhabara nasiib iyo qadar baa waxay dhimay waxa la isku dhaafiyo dhalan maaha guushiye dhabadeeda loo maro aan dhowr tilmaamood degta kuugu sheege marka loo dhibtoodaa dhereg iyo wanaag iyo dhaqashada la gaadhaa dhayd iyo gadhoodhka iyo dharab lagu caweeyaa oo malab la dhuubiyo dhuunyaalka buurta iyo dhanfaruurta geeduhu intay soo dhawaadaan carabka iyo dhanxanag iyo dhabanada yimaadaan calaf lagama dhuuntee qalinkana dhabacashiyo orod laguma dhaafee dhadhansada warkaygoo waxa uu ka dhigan yahay kama dhima ilaahay dhibic qudha addoomaha dhididka iyo xaqooge dulmi wuu ka dhaartee nafta dhiira geliyo dhalanteed ha aamin wayse dhici karaysaa adigoo dhacdaal iyo daal iyo dhib soo maray inaad weydo dheeftii subagaad ka dhamilayd ama kuu dhigmi lahaa balse waxaad ku dhaaftaa ma ogtahay dhirbaaxadu ma horseeda dhimashee dhabaday u sheegtaa qofka dhaga adeygee dhugan waayo talade dhibta lagu hongoobiyo fashalkii haddeer dhacay ninka raga wax uma dhimo cashir baabuu kuu dhigay cilmi buu dhab kuu baray tala kaa dhinayd iyo qaladka iyo dhaliilaha ku dhex jira naftaadee kugu dhuuman ayuu iska dhaaf ku leeyahay shaqada dantaashiyo waqtigaad ku dheeshuu ku tusaa dhibteedo fursadii ku dhaaftuu tan dambe dhigeeda ah dhayalin ku leeyahay tii hore dhaarantee ma dhammaanin dunidu iyo tan dambe dhigeeda ah maantaba wixii dhiman ku dhaqsuu ku leeyahay dhabaqsiga shaxaadkiyo ii dhiibta qayrka ah ha ku noqon dhadhama raac iimaanku waa dhare huguyaanu kaa dhiman ha dhawaysan raaxada adigoon u dholondholin muddo badan u dhuubnaan dhaxan iyo haraad marin dhabadanada jiilaal u kalihin dhagtii hore qorraxduna ku dhabanayn dhayar laguma gaadhee noqo geesi dhabar adag samirkana ku dhaashada dhinac kale ka eego dheri aan bislaanayn inaad dararsataa roon rajo aan dhammaanayn in la dhowricee ma leh balse waxaan la dhaygagay ninka ceelka dhaafee ka wahsaday inuu dhuro ama diiday dhooqada ee dhoomuhuu siday u dhaqdhaqay xareedee cirka dhoolka joogiyo dhadar roob ka sugayee surmi dhuuntu roortee ubadkiina dhaa yidhi kuu dhiibay adigee horta muuna dhoohnayn haldhigeedu wuxuu yahay nafta dhaamash ha u tumin kula soco wixii dhaba kolla dheeman doodoon kolla dhuunigoo qudha kolla dhaqasho raabcee kolla dheri wax kuu gala waxaa jira nin dhowloo ka hortaga dhibaato dhagarka la badbaadsho xasilooni dhaliyo nabadana dhakooloo dhulka tola dilaacee adigoon dhantaalayn midna dhinaca saarayn dhexdhexaadi aadmiga isku soo dhawee laba midba dhacan ku oodna naftu waxay ka dhiidhido ama dhiigu kaa kaco dhulka lagama waayee yaanay cadhadu kaa dhigin wiil dharastay oo kale hana tuurin dhagaxii dib u soo dhabacan kara dhuuxaaga jebin kara ee aan ku dhaafayn kolla dhogor shabeel xidho kolla dhexidhka naagaha dhulka midho u soo dhacay way kaaga dhow yihiin kuwa dhoorka saarane ha u dhaafin meel sare hadda dhuuma kuma lihi dhibyarayso kuma odhan dhawaqaygu wuxuu yahay dhawaqaan kule waxa uu ka dhigan yahay dhalanteed ha aaminin dabadeedna ha isdhigan hana odhan dharaartaa hebel baa waxii dhimay ka kalea dib ii dhigay dhereg baan la ii qorin haydhansiinin anigana marmarsiyo dhici kara dhigaa lama yaraystee kibir ha iska dhaadhicin dhidig iyo laboodkaba bulshada aad la dhaqan tahay ha ka noqonin dheeraad
dallinta iyo dadweynaha kulahow ammaan dhaba diinteenna dhowrsoon hiddaheenna dhaxalkaa labadaba ku dheehnow runtu dhaxan ma geydee hala dhuuman weligaa beentana ka dheerow laxdhukani abaar moog dhulka laguma joogee dhacdada iyo umuuraha ninu dhuun daloolo dhaba gala haddaad tahay waxba kuuma dhuuntaan dhawaq iyo codkaagana sida tan egbud lala dhacay dhowdhowdu waa ceeb lama ciyo sidii dhool ama weysha dhiinka ah dhibiraa la yeesha hooyadii ku dhowrtee bilo dhowra uurkiiyo dhexda kugu sidaysee dhuuniga ka soontee dhalmada iyo fooshii sankaraada dhamisee dabadeed dhaqaaliyo kalgacayle xeel dheer kugu dhooba kuustee dhabta kugu habaysee dhistay waxyahaagee dhaqankiiyo asluubtiyo anshaxaaga dhidibtee ku dhansiisay garashada ee dhaaxa abidkeed inaad dhaafta kayrkaa u dhammaamaxaysee kugu dheehan adigee dhiiggeega kaa jecel iyo dhaayaheegee dhibta kula nacaysiiyo aabbihii ku dhalay ee aad ku dhaadanaysay lagaa dheegay adigee kugu habay dhifkiis iyo dhididkii naftiisee hagarkaaga dhaartee dabka kuugu dhici jiray labaduba ninkaan dhiman way kaa dhur sugayaan ha ka dhimin xaqoodii cidi uma dhammaysee weligaa dhaqaale cidi uma dhammaysee ha dhayelin karaanka weligaa dhaqaale dhibri hadalkaa tidhi garabkana u dhaadhici ka dhegaysa waanada ha ka nixin dharaar qudha erey dhiif leh ka ogow cilmigana adoon dhigan qofna dhashee garo dhaxalyaanu kula noqon ilmo dharabta jiifiyo waayeel dhafoo racad midna lagama dhaafina jeerood ka dhimataan waa badan dhammaanina wax la yidhi ka dhaansada murti dhaxalgalaa tidhi haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaa waxa ay ka dhigan tahay markay dhiida gaadhee dhudhun iyo awood iyo dhumuc laysku sheegtee dulmi lagu dhawaaqee cadliguna dhammaadee qarannimadu dheelido waddankuna dhaxmoodee calankaagu dhaadhaco waa inaad ka dhiidhido waa in dhiigga loo huro dhiilada shisheeyaha waa inaad ka dhicisaa diintaada dhowrsoon dhulka lama huraankaa gobonimada dheega ah danta dhabar ahaaneed waa inaad u dhimataa dhayal maaha caashaqo dhacdo weeyi qaaliya marka dhinac la eegana noloshuu ka dhigan yahay dhaqanka iyo tafiirtaba dhidibkooga weeyaan dhan kalaase loo rogay waxaa hadalka loo dhigay dhirindhiiris qodaxdii lagu soo dhoweyn jiray dhaba laysku soo maro dhunkashada sarbeebta ah been iyo dhadhama raac iyo baahi dabadhow dheregaan caloor jirin dhuunyaal markaa qura dhulka loola kala kaco dhab ahaana xaajadu dhakaday ku socotaa dhagar baase laga galay dhaqanka iyo xishoodkii dhadhan xumada joogtana dheeh kaama saaree habla dhaamash ha u tumin ha ku dheelin gabadhugud axdi beena ha u dhigin adigoon dhammaynayn ubax dhiina ha u lulin qaar baa dhallaanee adiguna ha dhama'siin ha ka dhumin xaqiiqada qalbigeeda ha u dhicin ha u dhaafin kaydkii hantigeeda dhowrsoon ha u qoomin dhuuriyada dhidarkiiyo waraabaha iyo halaqa dhaadheer adiguna kuwaa dhan ilaan waa dhigoodii hablaha aad la dhalatee nafsi taada ha u dhigin iyo dhaxal mageyda ah gafka aad dhakobisaa kugu suga dhadhaarkee dhismihii arooskana markaad daadashada guud dhalankeyga gaar iyo dhan kastaba ka eegtee dubadqaadka sheekada dhoollaa ka qososhaan adoon sharafta dhaawicin hiddaheenna dhooqayn xiisuhu dhabkaa yahay ku dhadhabaya oo jecel dhabanka iyo gabaatiga waa inaad ka dhiibtaa gobonnimada dhowrtaa xilkana dhabar ka saartaa waxba yaanan dhaantada kolbe ereyo dhaylo ah u salaaxin dhoorkee hakad baan u dhigayaa dhibicduna waxay tahay doqon baa dhagaatiga xadhig dhuunta loo sudho dhudhummada ku sidatee geesiguma dhuuntee dherabtuu ka muuqdaa aarkuna ma soo dhaco halka ood la dhababee wuxuu soo dhirbaaxaa meeshii dhalleexsane iska dhiibi shaqalada waxaan ka odhan lahaa mid unba waxa weeyaan kolkaan horta sidaa u eegeen dadkii hore eega waxaan isdhahdaa niyo malaa dadkii gebiyey dee kolka malaha way maranayaan oo waa caynkaas laakiin kolkaan raggaloo kala arko ayaan idhahdaa ma lama maranayo raja way jirtaa kolkaa aad buu mahadsan yahay waxau ahaa maxamed muumin axmed oo ku magac dheer ababe ababe horta muxuu kugu baxay ababe dadku waxay moodaan inuu yahay magaca waxay dhahaan maxaba shiba markii dhaha ababe laakiin ababe waa af soomaali abab abab bay ka timid abab bay ka timid marka xoolaha ay baranayaan tigaada waxa lagu abab baranaya abab marka aniga magacan waa af soomaali waa abab maasan tahay kaas waxau ahaa maxamed muumin axmed ababe tan iyo intaan dib u kumi doono barnaamijkeeni isticmaal barnaamijkii gabayga iyo gabayaaga oo barnaamijkan uu ahaa barnaamijkii koowaad ee aan ka qabano hal abuurkaa soo koraya ee maxamed muumin axmed ababe tan iyo intaan dib ugu kumi doono barnaamijyo noocan oo kale ah waxaan kaga tegaynaa nabadgeliyo